xafladana lagu daafurayay garoonka Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareena mas'uuliyiin heerarkooda kala duwan ee ka tirsan Koonfur Galbeed baada sportska iyo marti sharaf kale ee lagu casuumay xafladda. garoonkan ayaa la sheegay in dhismihiisu uu socday ilaa 2 sano waxaana dhismihiisa door weyn ka qaatay maamulka Koonfur Galbeed iyadoo si aad ay u soo dhaweeyeen baada sportska magaalada Baydhabo maadaama garoonka loo dhisay si casriyeysan. dhalinyarada sportska magaalada Baydhabo ayaa dhankooda si aad u soo dhaweeyay dhismaha garoonka Dr. Ayub Stadium ee sida casriga loo dhisay waxayna sheegeen in garoonka uu la mid yahay garoomada kale ee caalamiga ee Soomaaliya. wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Koonfur Galbeed ayaa tilmaantay in sportska uu yahay isdhexgalka bulshada iyadoo sportska muhiim u yahay dhalinyarada halkii ay ku mashquuli lahaayeen waxyaabo kale sida maandooriyaha oo dhalinyarada inta badan aad u saameeyay. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa dhalinyarada sportska ugu baaqay in ay ka qayb qaataan horumarka nabadda. garoonka Dr. Ayub Stadium ayaa in muddo aan helin wax dayactira tan ilaa burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya xilligaasi oo lagu qaban jiray ciyaaraha gobolada dalka iyo degmooyinka. wixii intaasi ka dambeeyay garoonka ayaa noqday mid aad u burbursan oo dhalinyarada ciyaaraha ay dib ku qaban jireen kulamada qaar markay ku ciyaarayaan garoonka Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo.